bulshadii qadiimkaay beledkii bilnaayo baraawey ma nabadba bulshadii barbaartaay baarankii ku caanay baraawey ma nabadba badweyntii hindiya iyo bilicdii ku caanay baana roomaha loo dhameeyay baraawey ma nabadba bulshadii beeralaydaay baad iyo baxaariba kuwii beerayaayo baraawey ma nabadba bulshadii geesiyaasho Boortaqiiska buurow baraawey ma nabadba intaas waa abaalgudkii soo dhaweyntii 89kii iyo soo dhaweyntii maalmihii aan mid halkan waxaa la dhihi jiray waagii halkan mid 89kii baraawey waa beled nabada berigii qofkii yimaado waa la baafinaa ilaa hee basarkiisa la ogaado waxaan aad ugu faraxsanahay marka meeshan waxa maanta ka muuqda oo aan rabo inaan qiyaaso tusaale ahaan maalintii halkan aan imaanaynay oo aan dhagaxa dhigaynay waxaan ku nimid helicopter meel la maro ma lahayn dad badani ma aaminsanayn in meeshan ay garoon noqon doonto diyaarado ka soo degaan laakiin si taas loo gaaro wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed iyo dadka walaalaheena oo amisom oo nala jooga oo cadawga difaacaya ayaa naftooda ku bixiyay waxaan leenahay inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacdana ama dhaawac ku gaarana Allah caafiyo laakiin tusaale waxa ah halkan waxaa lagu dhisay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo la shaqeynta beesha caalamka laakiin waxaa lagu dhisay geesinimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo rabitaankooda iyadoo xabad lagu ridayo inay dhulkooda xoreysteen dhisteen garoonkan waxay ka turjumaysaa horumarka ummadda Soomaaliyeed dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu marka ay wada shaqeeyaan ma aha kaliya in garoon baraawo laga dhisayo laakiin waxay ku dhowdahay Koonfur Galbeed iyadoo kaashanaysa dawladda federaalka iyo ciidamada geesiyaasha ee qalabka sida ee sharafta leh ee Soomaaliyeed in dhammaan la xoreyn rabo dhulkii Shabeellada Hoose inta dhimanna waxaan rabnaa inaan dhamaystirno waxaan rabaa inaan qof walba oo qayb ka ahayd u mahad celiyo in garoonkan la suurto geliyo magaalada Baraawe oo ah magaalo madaxda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa bilaabatay astaanteedii dhabta ahayd oo ahayd inay magaalo madax noqoto ummadda Soomaaliyeedna isugu keento halkan reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Baraawe waxaan leeyahay hambalyo furitaanka aeroboorku marka waxa uu wax ka tari doonaa isu socodka dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan doorkii magaalo madaxda Koonfur Galbeedna maanta ayaa dhidibada loo aasay waxaan leeyahay hambalyo reer Baraawe arrinka labaad oo halkan aan rabo inaan ka sheego waxay tahay maadaama magaalo madaxdii Koonfur Galbeed Baraawe aan joogno dawlad goboleedka Koonfur Galbeedna laga rabo magaalo madaxda inay ku shaqeeyaan yaan laga ogolaanin Cabdicaiis iyo wasiiradiisu inay halkan ka laabtaan laga bilaabo saacadda halkan waa meel taariikhi ah anigoo dhalinyar
sanadku markuu ahaa 1989 markii aan rabay inaan nolol cusub bilaabo waa magaaladii aan ka bilaabay حاجة 50 تي أن كسر راعي كوني سجال بقول سديتني سجال كي بشي مارسو شنتي دي هل كان كويمد كدبنا هل كان دون كراعي لما أسبوع كدب وما تسنتين مرتجلنتي مالنتاس هي مرتجلنت ما أنت برا وهداتين حسوستي إذا مركب واحد تاي waxaa kaloon rabaa inaan halkan hortiina ka ballan qaado in 7 kiiloomitir oo isku xiraysa magaalada iyo garoonka inay dawladda federaalku idin ballan qaadaysa in la idin dhisaayo waa mahadsantiin